Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magaaladii Camuud. Magaalada Camuud waxa ay ka mid ahayd magaalooyinkii Soomaaliyeed ee qadiimiga ahaa ee duugmay, ee lumay raadkoodii, dhaxalkoodii iyo taariikhdoodii. Kadib la iska hilmaamay. Jiilkan maanta jooga ana aanu ogeynba in ay jirtay magaalo Camuud la odhan jiray iyo in kale, maadaama ay ku garaadsadeen ummad iyo waddan dhalan rogan oo ay jahawareeriyeen gumaystayaashii gaalada iyo hoggaamiye ama qabqable siyaasi isku sheega ama qabqable qabiil ama siyaasi isku sheeg ka Soomaalida maanta madaxda u kala ah iyo dabadhoon shisheeye. Magaalada Camuud waxa ay ku taallaa gobolka Awdal, 10 kiiloomitir ayay kaga beegan tahay koonfur bari. Caasimadda gobolka Awdal ee Boorama ilaa 1000 mitir ilaa 1300 ayay joogga badda ka sarreysaa qiyaastii. Magaalada Camuud waxa ay caasimad ahayd casrigii dahabiga ahaa ee boqortooyadii Adal Geeska Afrika xukumi jirtay. Xilligaas ayaana ugu dambeysay nolol lagu noolaado magaalada Camuud. Nin Ingiriis oo la odhan jiray Huntingford ayaa 1930kii booqday magaalada Camuud. Xogtii uu ka qoray waxa uu ku yidhi, magaalada Camuud may lahayn magaalada wax dayr ah, wax waddooyin ah may lahayn, wax dhir ahna may lahayn. Waxa ay lahayd dhowr masaajid oo yaryar. Waxa ka dhisan in ka badan 200 oo guri oo dhagax ah oo 26 mitir joogoodu yahay, kuwaas oo ka koobnaa 2 qol ilaa 4 qol. Sidoo kale waxaa ku yaalay boqolaal guri oo ahaa guryaha loo yaqaano bangolooyinka ee dusha ka furan courtyard houses. Sidoo kale waxaa ku yaalay raadyaalo archaeology u badan oo ahaa weelkii dadkii hore isticmaali jireen, kuwaasi oo ka samaysnaa quraarado iyo dhoobadheridii qaaliga ahayd. Culumta raadyaalka archaeologist iyo culumta dhulka geologistiga ee hay'adda Ingiriiska ee Sonia Marie Cole waxa ay qeexeen in magaalada Camuud 250 ilaa 300 oo guri oo daara ahaa ka dhisnaayeen. Sidoo kale magaalada Camuud waxa kaloo ay lahayd ardaayo xereed Somali sentences oo culimadu carruurta diinta ku bari jireen kuna xadreyn jireen. Sidoo kale waxa ku yaalay dhowr taalooyin iyo minaarado badan oo dhagaxan shub ah ka samaysnaa, kuwaasi oo la mid ahaa kuwa ku yaala magaalada waqooyiga Itoobiya ee deegaanka Tigrayga ee magaalooyinka qadiimiga ah. Sidoo kale waxa yaala burburka hadhaagii agabkii qurumihii hore qadiimiga ahaa u adeegsan jireen iftiinka inay wax ku shitaan sida faynuuska ama tiriiga oo kale, kuwaasoo afka qalaad lagu yidhaahdo pottery lamps ama oil lamps oo ka horreeyey faynuuska iyo tiriiga. Intii aanay soo bixin ayaa la shidan jiray. Magaalada Camuud waxa ay isku mid yihiin xadaarad ahaan, farshaxan ahaan, raadyaal ahaan, dhismo ahaan, taariikh ahaan iyo dhan kastaba oo ay wax kasta wadaagaan magaalada Aksumayd ee waddanka Itoobiya ee gobolka Tigrayga ku taalla. Magaalooyinka Camuud iyo Aksumayd waxaa lagu qiyaasaa xilligii la degay 2 qarni ilaa 5 qarni kadib dhalashadii Nebi Ciise, oo qarnigii 2aad ka soo bilaabmaysa ilaa qarnigii 5aad ee taariikhda miilaadiga. Hadda magaaladii Camuud waa masaxantay oo magaceedii waxa la wareegay Jaamacadda Camuud oo loogu magac daray waagii gumaysiga Ingiriiska ee dugsigii uu ka dhisay aabbihii aqoonta Soomaaliyeed ee Maxamuud Axmed Cali, Allah ha u naxariistee.
dadka hadda waxa ay u haystaan magacan Camuud in jaamacadda Camuud loo bixiyey uun. haddaba waxaa isweydiin mudan sababta magaalada Camuud u duugantay ee taariikhdeedii iyo raadkeedii u tirtirmay dhammaan ee maanta wax xog ah looga waayey, iyo sababta magaaladii la xilliga ahayd ama kaba dambaysay ee Aksumayd maanta tahay goobaha ugu qaalisan ee dunida ee uu ku dhaato adduunku ee si heer caalami ah u ilaaliyo loona daryeelo khubarada caalamka iyo dalxiisayaasha duniduna ka qoob qaadin mar qura. alla maxaa dhaxalkeenii geeska duugmay oo ay Soomaalidu dhaxal wareegtay. ilaahayow ummadaada muslimiinta ah iyo ummadda Soomaaliyeedba u gargaar. aamiin yaa rabbilcaalamiin. qormadan waxaa diyaariyey Dhulbeeg Axmed Mooge, kaas oo aanu ka soo xiganay maqaalkiisaas oo aanu cod ahaan ugu soo dubnay, maadaama ay Soomaalidu ahayn dad akhristayaala, ayse yihiin dad inta badan dhegaystayaala oo muuqaalada ama dhegaysiga wardhagoodka dhigmaalka u yihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. janalkana layg noo saar si aad ula socoto xogta iyo dhaxalka Soomaaliyeed ee duugan ee idinka dahsoon. si aanu u soo badinnana nagu taageera kommentiga iyo laygta. waa mahadsantihiin.